بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله كسو دوادة تحانهني إلا من أتى الله بقلب سليم فدقني وفدقي صدحية تبنات وحين ولي برتنك وغتشرنا أبرز أعمال القلوب acmaasha qalbiga laga qabto kuwa ugu muuqmuuqda acmaasha qalbigu uu saldhigga u yahay barbilowgana uu u yahay inay isaga ka soo fulaan ma ogiyo xubnuhu aysan fulinaynin waxaa ka mid a alcubuudiya waana camalka toddobaad xagga tirsiga tobanka camal ee aan inoo dooray ee qaybta taxanaheennani uu ku saabsan yahay alcubuudiya waa inaad ilaahay addoon u noqoto addoon ilaahay waad u tahay waad ku qasban tahay waad ku sandullaysan tahay maxaa yeelay ilaahay isagaa ku abuuray ku nooleeyey ku dilaya ku maamula ku soo saaraya kula xisaabtamaya dhanka markii laga eego waa qasab laakiin inay arrinkaa qalbigaada ay ku weynaato oy boos ku yeelato ayaa waxaa la yidhaahdaa cibaadada dhammayska tiran xaqiiqadeeduna waxaa weeye hiya kamaalu lmaxabati lilah cubuudiyo haddaad doonayso xaqiiqadeeda waa jacayl alla la jeclaado oo dhammaystiran almaqruuni bigaayati aldulli waalkhuduuci waalijlaali waatacdiim kalgacalladaas iyo jacaylkaasoo uu ku lamaan yahay isdullayn iyo hogasho iyo weynayn alla jalla jalaaluhu cid aan alla ahayn oo ay intaasoo tilmaamood ay ku kulmaanna ma ay jirto way dhici kartaa qofka inuu hoggaansamo maxaa yeelay waa askari oo haddii uu amarka qaadan waayo mushaarkiisiina ma helayo garaadaha marka uu leeyahayna in laga qaadaa laga yaabaa ama haddii kale xoogay lacag ah ama xoogay adduunye ah ayaa qofkan loo ballanqaaday laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala addoon loo noqdo waxaa ku kulma jacayl meesha ugu dambaysa gaayat alxubbi iyo gaayat aldulli waalkhuduuc iyo gaayat alijlaali waatacdiim ilaahay oo la weyneeyo oo la jeclaado iyo haddana isaga oo laysu dulleeyo oo laysu dhuldhigo ayaa ku kulma marka alxubbu iyo waalkhawfu iyo waalrajaa ayaa cubuudiyada ku kulma waana xudunta cibaadada oo idil cibaadada waxyaabaha santarka u ah waa alxubbu ama almaxabba iyo alkhawf iyo waalrajaa weeye saddexdabana cubuudiyada laga helaya axibatii fillah waxaynu isdul taagi doonnaa maqaamu alcubuudiya cubuudiyadu dadka assaa'iruuna ila allah ilaahay xaggiisa u socda ilaahay xaggiisa dadka socotada u ah maqaamaad iyo garaadday kala leeyihin isku darajo ma aha way kala garaaddo badan yihiin askartu sowdable iyo ma aragtayey askari iyo xadhigle iyo xidigle iyo kabtan iyo kornayl iyo jenaraal iyo mid walba isagoo weliba darajaad leh soo ma jiro marka cubuudiyaduna waa ilaahay oo addoon loo noqdo laakiin iyadaa maqaamaad leh maqaamaadka allah subxaanahu wa tacaala xaggiisa inta loo socdo ay dadku yeelanayaanee kordhaya ama hoos u dhacaysa waa midda ugu sharafta badan cubuudiyadu maqaamu alcubudiyati hiya ashrafu almaqaamaat weeye saa daraaddeed ba culimmadu waxay yidhahdaan man araada sacaadata falyalzam catabata alcubuudiya qofkii liibaan adduuniya aakhira doonayo ha laazimo kadinka addoonnimada alle ilaahay subxaanahu wa tacaala nin madax ah haddaad daacad u tahay oo shaqadiisa aad daacad u tahay dadka muqarabiinta ahee uu doortayna aad ka mid tahay ninkaa daacadda maxaa lagu yaqaanaa mar walba inuu ninkaa madaxda alla joogo albaabkiisa inuu laazimo aan laga agwaayin taasaa lagu gartaa walilaahi almatalu laclaa waxaa weeye ilaahay cidda u shaqaynaysa addoonka u ahna rabbi subxaanahu wa tacaala addoonnimadiisa alcubuudiya cubuudiyadaasi catabadu waa kadinka iyo meesha albaabka laga soo galo halkaa ha laazimo wuu liibaani aakhiriya adduunba eh qofkii doonaya inuu marka cubuudiyada iyo siduu ilaahay u ammaanay siduu ilaahay u sharfay siduu ilaahay uga kormariyey wax walba garaaddo la qaato haddaan luqadeenni casriga idinkugu macneeyo garaaddo lagu labisto garaadaha ugu qiimaha badan waa inaad ilahay addoon u noqoto bal u fiirso qisadii alisraa waalmicraaj markuu alla subxaana wa tacala nabigiisii maxamed ahaa oo khayru khalqillaahi ahaa markuu dheelmiyey maka ka waday baytulmaqdis sii mariyey kadibna rixladii ila asamaa ay ku xigtay alla subxaanahu wa tacaala marka qof dadka u shaqeeya khaasatan kuwa ka agdhadhow marka uu sharfayee maamuusayo magacyadu ugu yeero iyo sida uu u soo dhoweeyo iyo sida brotokolaadka loo diyaar garoobo waad garanaysaan magacyada la isugu yeero waad garanaysaan marka soo dhoweyn taariikhda aadanaha ay aragtay middii ugu weynayd waa soo dhoweynta ilahay uu soo dhoweeyey nabigiisa moxamed calayhi salaatu wasalaam marka bal waxaan fiirinaynaa magaca loogu yeeray baynu fiirinaynaa ma rasuulka ilaahay baa la yidhi markii loo yeerayey ma nabigii ilaahay baa la yidhi ma muxamed baa la yidhi ma khayru khalqi illaahi baa la yidhi bal waxa la yidhi baynu fiirinaynaa qaala allahu tacaala subxaana aladii asraa bicabdihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بعبده بين وقسعنا
maqaamu risaalati iyo wa talabu ljamaahiiri bilcubuudiya markuu alle ka hadlayana wuxuu yidhi waannahu lamaa qaama cabdullaahi yadcuuhu cabdullah dacwo markuu ka hadlayey oo dadkoo diinta loogu yeedhana ilahay wuxuu yidhi markuu addoonkii ilaahay u istaagay addoonkii ilaahay markuu u istaagay ayuu yidhi maqaamu lqurbi min allahi caza wajal alle subxaanahu wa tacaala dhowaanshihiisa iyo waxyigiisa addoonkii uu u doortay oo ku soo dejinay markuu ka hadlayeyna wuxuu yidhi rabbi tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira nazla alfurqaana calaa cabdihi maxalushaahidka waa kaas marka waa garaado ma cid nebi maxamed dadkeenan hadda kan hadlaya iyo inta lala hadlayo su'aalaan isweydiinno nebi maxamed cid ka garaado badan ama doonaysa inay ka garaado badnaato miyaa inagu jirto xasha haba ka yaabin marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meeshuu gaaray cid gaari karta ma leh markii loo yeerayeyna addoonnimaa loogu yeeray idan waxaa weeye cubuudiyadu waa meel aan la gaari karin waa meel cid ilaahay uu doortay uu gaarsiiyey weeye sidaa awgeed ayuu alla subxaana wa tacaala magacyada aynu carruurteenna u bixinayno ilahay wuxuu ugu jecel yahay cabdullahi iyo cabdiraxmaan cabdullaahi iyo cabdiraxmaan maxaa yeelay labada magacba waxaa ku jira idaafo loo tiiriyey alla subxaanahu wa tacaala alcubudiyatu lilah cabdullah iyo cabduraxmaan haddaynu taa ogaano marka walaalayaal addoonnimadu qiimaha ay leedahay waa inay qalbigaada ay ku weynaataa waa tii uu lahaa shaacirkii wa mima zaadanii sharafan wa ciza wa kidtu biakhmusi ata'u thuraya dukhulii taxta qawlika yaa cibaadii wa an sayarta axmeda lii nabiya waxyaabaha sharafta iyo cizada iyo karaamada gobonnimada dadnimada ii kordhinayo waxaa ka mid ah inaan ka mid ahay marka aad yaa cibaadii aad tidhi in aan anigana soo gelayo magacaasoo addoommadaada aan ka mid ahay iyo inaad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nabigaygii aad ka dhigtay ilan la kale nabiyo wanaagsane inaad nebi maxamed nabi iiga dhigtayna iyadana waxaa weeye sharaf iyo cizi bay ii tahay waxyaabaha cubuudiyada iyo inaad ilahay addoon u noqoto qiimaheeda inoo tilmaamaya waxaa ka mid ah ilaahay koox uu aad u ammaanay oo addoommadiisa ku magacaabay baa jirta oo fii suurati alfurqaan alla subxaana wa tacaala uu ku sheegay وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما kama gaarno tafsiirkoodee sifaadka aadka u qiimaha badan kooxda uu ku sheegayna ilaahay wuxuu u bixiyey cibaaduraxmaan allah nagu daro ayuha alaxibatu fillah addoonnimada ilaahay markii adiga xaggaada laga helo ilaahay muxuu kuugu talagalay muxuu ku diyaariyey maa acadda allahu licibaadihi baynu iyadana wax yar aynu isdul taagayna wallaahi haddii ay dadku ogaan lahaayeen wuxuu ilaahay u diyaariyey waxaa weeye dhammaantoodba waxay wada rajayn lahaayeen oy qalbigooda ku weynaan lahaa oy ku wada shaqayn lahaayeen inay noqdaan addoommo ilaahay marka sifadana waan kuu sheegi daliilkana waan kuu raacin insha allah adna waxaan kaa rajaynayaa inaad ereyga dhuuxdo kow allahu tabaaraka wa tacaala yaxfadu cibaadahu min ashaytaan arajiim addoommadiisa
عبودية لغا هلي شيطانك أيو كحفظيا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان بالله سبحانه وتعالى شقكم لهد حجنكم لهد أدوم ذيذا لبو الله سبحانه وتعالى يلطف بهم وأن حريص إله أدوم ذيس الله لطيف بعباده صدح الله عز وجل يكون قريبا من عباده وأدويه أدوم ذيسة مركز طيب هذا ربي سبحانه وتعالى كما فوق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أدوم ذيذا وندوه إله يري أفر الله عز وجل يغفر ذنوبهم ذنوب تودافا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم شن الله عز وجل يقبل توبتهم مركا أي دنبابان أو إلهي قوانينك ودجي أي مارتي كحد قدبان دبدنا إلهي أسو النقدان إلهي توبته أقبلا قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده إلهي وكان أدومديس توبتك أقبلا لح الله عز وجل يرحمهم إلهي أدومديس وأن حريستا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أشيك أدومديدا إن أنا هاي دافد بدنه رح نحريس بدنه أنا هاي أي ربي سبحانه وتعالى إن ليه تضبو الله عز وجل يؤمنهم يوم الفزع الأكبر مالك أي أدومد أردن نول بشرتي سوك عبسنيو أما شرتي أي ميل والبقادي الله سبحانه وتعالى أدومديسا مع عبسدان وحوي وفي أي بي عبسي يول اسمار كان يا عبادي لا خوف عليكم اليوم أدومدي ديو لا خوف عليكم اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم أدومدي ديو ما أنت عبسا ميسان ولا هم يحزنون والول يوحي صور دافتين أول ميسان سديد الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة جنة أيو قرين يا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا سقال الله سبحانه وتعالى إذا أدخلهم الجنة أعطاهم نعيما لا يحيط بكنه أحد الله أكبر مركو جنة قليو كرر لأهاضو هولك مالنت يوم القيامة بنك يوم القيامة وبد باديو أو في أي بي إيجا سيغاني قوني اللوسو دويو مركا أي دعضو هذانا الله وحسين يا نعمو قفك ابن آدم كأمسك حديث يمان كي سبا إسان ما من كرين قلبي قاضي حتى أوسن سورة يسن كرين شيخان كوحي وريا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر الضوامض إذا وحان الدياري أو أنسيي وحيسا إلي أرك دقنا مغلن قلب ابن آدم أنكو صدعن فاقرأوا إن شئتم بجري فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأعظم النعمنا النظر إلى وجه الله الكريم نعم الله يسيسينا وحا أقو قيمة بدن إن إلهي وجهيس في الجنة أتكو أرت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وإلهي وجهي داسي هنقدروا كوي النعمة مشركين تولق حجابي أركي ما كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولله در القائل نينكي قبي حجري وحي على يوم المزيد الذي به زيادة رب العرش فاليوم موسم فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع قد بدا لهم بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش وهو يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميع وترحم فيعطيهم هذا ويرشد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فيا بائعا غال ببقس معدل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم الله أكبر ولا ليال وانا الحلقة وانا لا ديراتين لكن waxa weeye ma soo koobi karnee النظر إلى وجه الله الكريم ونعم الله isugu nicmeeyo tan ugu qiimaha badan weeye أحبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى nagu irsaaqo nicmooyinkaas adoomadiisana Allah nagu daro اللهم استعملنا ولا تستبدلنا إلهي waxaan ku weydiisanaynaa حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أحبتي في الله انتين أوغا كل مدونو حلقة أفرية تبنات ولكن عبد الله شحنبلي وإذن لا أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته